barasaabka gobolka Salal mudane Cabdirasaaq Waabari Roble oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Saylac ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen xaaladda biyaha degmada Saylac waxaanu barasaab Waabari sheegay in ay biyaha degmada Saylac oo ay cabashadoodu baryahan dambe soo noqnoqonaysay ku wareejiyeen cid gaar ah oo qaadi doonta mas'uuliyadda biyahaasi isla markaana bulshada gaarsiini doonta biyo ku filan barasaabka gobolka Salal mudane Cabdirasaaq Waabari Roble ayaa carabka ku dhiftay kambaniga ay biyaha degmada Saylac ku wareejiyeen isagoo oo sheegay in ay kambaniga Tayo oo ay leeyihiin ganacsato ka soo jeeda deegaanka degmada Saylac dhawaan ku wareejiyeen maamulka biyahaasi degmada Saylac isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaanu ku hamiyeynay aan ku dadaalaynay in ay afarta arrimood ee ugu muhiimsan qof bini aadam uu baahan yahay in bal marka hore aanu wax ka qabanno waxa aan eeba ugu mahadnaqayaa gobolkani waa gobol nabdoon oo nabad buuxda ay ka jirto maadaama gobolkii uu nabad yahay waxaa muhiim ah in loo dhaqaaqo dhinaca horumarka waxaa nagu waajib ah madaxweynuhuna loo igmaday inaanu dadaal dheeraada u gallo sidii aanu kor ugu qaadi lahayn baahiyaadka joogtada ah sida waxbarashada iyo barbaarinta yani waa waxa u horeeya ee ilmaha lagu kor loogu qaadi karo lagu korin karo inaanu taa dadaal saaro oo intii kartidadii iyada ah aanu meel walba ku dadaalo waxaa noogu xigtay inaanu wax ka qabanno khayraadka ilaahay ku manaystay Saylac oo badda ah kalluumaysiga dhawaan buu wasiirku noo yimiday waxa ugu horeeyay ee kalluumaysi noogu hirgalayaana waa Saylac inay hesho baraf waa in la hirgaliyo baraf dhaliyihii weynaa ee degmada Saylac ay lahayd marka barafka la helo waa la kalluumaysan karaya inta aan baraf lahaynin se nooba hirgalaya kalluunku waxaan rajaynayaa iyada oo qoladii hore ee qaadatay runtii xaalku uu ka noqday mid ogasha in hadda tallaabo hor la qaado oo hawsha baraf dhaliyahaasi ay noo hirgasho waxaa jirta oo idin noogu xigtay nolosha bini aadamka waxa aasaas u ah biyaha Saylac marxalado kala duwan bay soo mareen way soo noqnoqdeen dhibaato badan bay mataqaanaa ay ku hayaan dadweynaha runtii dadaal dheeraad ah oo loo galay wasaaradda iyo golaha councilka Saylac iyo gobolkuba dadaal dheeraad oo ay galeen waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono biyo la'aantii magaalada Saylac arrinkaasi go'aan waxaanu ku gaadhnay markii aan aragnay baahida biyo la'aaneed ee soo noqnoqonaysa markii aanu aragnay xeerka biyaha ee qaranka qodobkiisa 720aad faqradda 1 2 markii aan arkay xeerka biyaha qodobkiisa 8aad faqraddiisa 1 waxaan kadib markii aan ka wada tashanay duqa ama maayarka Saylac iyo wasaaradda biyaha waxaanu isla garanay si biyaha Saylac ay u noqdaan kuwo meel mar ah dadweynuhuna ay u helaan biyo joogto ah oo ku filan waxaanu isla garanay inaanu ku wareejino cid mas'uuliyaddeeda qaadi karta shirkad wadaniga inaanu ku wareejino runtii shirkad Tayo la yiraahdo ayaa soo dhigatay waxa la wixii loo baahnaa annaguna aanu isla garanay inaanu siino biyaha Saylac shirkadaasi
oo raaci doonta ama mari doonta wadadii ay shaaba martay iyadoo waliba ka faa'iideysan doonta talooyin badanna ka heli doonta shirkadda shaaba ee taaba gashay oo mataana la noqon doonta haddii alla yidhaahdo annagu umaanu eegin waxaanu u eegnay ayaa fulin karaya ayaa hawshaa qaban karaya ayaa lagu aaminaya ayaa mas-uuliyaddaasi qaadi karaya ee wadda loo raacale taas waxaanu garanay inaanu shirkaddaa tayo aanu u diyaar garayno oo aanu u dhiibno iyada oo haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa inay hawshaasi noqon doonto mid meel mar ah oo guul noqon doonta iyaga oo haysta maanta facilities badan ama talooyin badan oo ay ku dhaqaajiyaan hawshaasi guud ahaanba yacni inta gobolka Salel ka kooban yahay arrinkan waa mid aanu doonayno inaanu ku gaarsiino oo min degmo ilaa tuulo ay biyo hesho biyahaasi oo loo maamuli doono sida ugu habboon ee dadweynuhu ay uga haqabeelayaan waxa la nooga baahan yahay in dadku ay biyo helaan oo aan biyo la waayin taasna waa in loo dhaqaaqaa si alla sidii ay biyahaasi ku suura galayaan ee ay dadku biyo ku filan ay u heli lahaayeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ugu dambayn in hawshaasi ay dhowaan dhacdo biyaha Saylacna waxaan rajaynaynaa sidii ay naga ballan qaadeen hay'addii IFAD wasaaradda biyaha iyo mataqaanaayay cidihii kale ee gacanta ku siinaysayba in dabayaaqada bishan sanadkan ugu dambaysa ama sanadka cusub horaantiisa in si buuxda biyo macaan Saylac ay u heli doonto haddii ilaahay yidhaahdo guul baan rajaynayaa waa maxamed cawaale daahir Shinile News magaalada Saylac